asalaamu ullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu dhegaystayaal daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa maalnimo axad ah 18 bisha oktoobar 2009 halkani waa birmed media dhegaystayaal daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka madaxdiisii taliska booliska dowladda kumeel gaarka ayaa sheegay inay saakay soo qabqabteen rag xiran tuutaha dowladda kumeel gaarka oo ammaan darro ka waday degmooyin ka mida gobolka banaadir arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka heshay dalka yemen ayaa saaka ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde dowladda liibiyana waxaa la sheegayaa inay ogolaatay in ay sii dayso dhammaan maxaabiista soomaalida ah ee ku xirxiran xabsiyada dalkeeda dhegaystayaal intaasi waa warka madaxdiisii haatanna isagii oo fidsan taliska booliska dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag xiran dareyska askarta dowladda kumeel gaarka oo ammaandaro ka waday degmooyin ka mid ah gobolka banaadir taliyaha qaybta ciidanka booliska dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya cali xersi bare cali gaab oo maanta shir jaraa'id ku qabtay golaha magaalada muqdisho gaar ahaan saldhigga afar irdood ee degmada xamarweyne ayaa kaga warbixiyey saxaafadda howlgalle ciidanka booliska dowladda kumeel gaarka ay ka sameeyeen qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir taliyaha ayaa sheegay inay howlaha howlgalladaasi kusoo qabqabteen rag hubaysnaa islamarkaana watay dhar shibil ah iyo kuwo kale oo labisan dareyska askarta dowladda kumeel gaarka kuwaasi oo dadka dhibaataynayay waxa uu xusay in markii ay baaritaano ku sameeyeen qaar ka mid ah raggaasi ay ku wareejiyeen talisadii ay ka soo jeedeen raggaasi isagoo intaasi ku daray caligaab in tir ahaan ay raggaasi gaarayaan ilaa 10 qofood howlgalladii ciidamada booliska dowladda kumeel gaarka ay maanta ka sameeyeen xaafadaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa imaanaya xilay dhowaanahan cabasho ay ka soo yeeraysa dadka shacabka ah kaasoo ku aadana rag xiran dareyska ciidamada dowladda kumeel gaarka oo dhac u geysta arday deeq waxbarasho ka heshay dalka yemen oo ayaa saaka ka dhoofay garoonka diyaaradaha muqdisho 9 arday oo deeqo waxbarasho ka helay dowladda yemen ayaa saakay ka ambabaxay magaalada muqdisho iyagoo ku sii jeeda dalka yemen oo ay deeqdaas waxbarasho ka heleen ardaydani oo helay deeqdaas waxbarasho ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqatay farxad waxayna ardaydu mashquul ku ahaayeen sida ay dowladda yemen ugu deeqday deeqdaasi waxbarasho iyagoo ardaydu isku marxabeynayay safarkoodaasi mas-uuliyiinta dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa noo xaqiijiyey qaabkay ardaydani u baxayaan waxayna sheegeen inay ardaydan yihiin kuwa nasiib u helay sidii ay usii wadan lahaayeen aqoontooda waxbarasho sidoo kale mas-uuliyiin dowladda ayaa sheegay inay dowladda yemen u caddaysay inay deeqdaasi waxbarasho u soo marsiiso soomaaliya nidaamka dawliga ee gudaha ka jira waxayna sheegtay inay ardayda soomaaliyeed ee doonaya waxbarashada u damqanayaan dhanka kale bixitaanka 9 arday ee deeqaha waxbarasho hel ayaa waxa ay rajo gelinayaan arday fara badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarasho ee laga doonayo mana aha markii ugu horreysay ee ay dowladda yemen deeq waxbarasho siiso arday soomaaliyeed dhegaystayaal daawadayaal weli halkaad nagala socotaan waa birmed media dowladda liibiya ayaa la sheegay inay ogolaatay in ay sii dayso guud ahaan maxaabiista soomaalida ah ee ku xirxiran xabsiyada dalkeeda wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladda soomaaliya xasan macalin maxamed ayaa ka warbixiyey socdaalkii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo wafdigiisa ay ku kala tageen dalal ay ka mid yihiin libiya iyo maraykanka wasiiru dowlaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxyar uun kadib markii uu madaxweynaha soomaaliya ee xubnaha la socday ay soo gaareen magaalada muqdisho maalintii shalay ayaa intaa ku daray in madaxweynaha uu u tegay dalka maraykanka isagoo ka khudbeeyey ayuu yidhi shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka dhaca magaalada new york sidoo kale waxa uu sheegay wasiiru dowluhu in madaxweynaha iyo xubnaha la socday ay kulamo kala duwan la qaateen jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka iyagoo uga warbixiyey buu yidhi xaaladda uu ku sugan yahay dalka soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa buu yidhi sidoo kale waxa ay soo mareen dalka liibiya waxayna la kulmeen madaxda dalkaasi oo uu ugu horeeyo madaxweynaha dalka liibiya kolonel mucamar khadafi waxayna isla soo qaadeen xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya waxaana dowladda liibiya ay naga ogolaatay buu yidhi sii daynta dadka soomaaliyeed ee ku xirxiran xabsiyada dalkeeda dowladda masar ayaa lagu soo warramayaa inay talyaaniga u soo bandhigtay hindise nabadeed oo lagu nabadaynayo xaaladaha dagaaleed ee ka alulsan dalka soomaaliya
madaxweynaha dalka masar xusni mubaarak oo kuna la qaatay dhigiisa dalka talyaaniga iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa soo bandhigay hindisa cusub oo masar ay ku doonaysa in loo adeegsado nabad ka dhalinta dalka soomaaliya. madaxweyne mubaarak oo socdaal hadda ku jooga magaalada rome ee dalkaasi talyaaniga ayaa kala xaajooday mas-uuliyiinta talyaaniga qaabka lagu gaari karayo xal loo helo dagaalada ka sii daraya ee ka taagan soomaaliya, kuwaasoo buu yidhi hadda sii cakriyey xaaladda gobolka. dowladda masar waxa ay sheegtay inay rumaysan tahay dhinacyadii isku hayay siyaasadda dalka soomaaliya in xalkooda lagu dhammayn karo, balse ay jiraan dhinacyo dagaal kula jira dowladda oo aan doonayn nabad in ay ka dhalato dalka soomaaliya sida ay masar sheegtay. kulamada mas-uuliyiinta labada dal ayaa lagu lafaguray taageerosiinta xukuumadda kumeel gaarka ah ee soomaaliya, iyadoona dalka talyaaniga loo tixgelinayo dowlad hore u gumaysatay soomaaliya oo wax badan ka taqaana madaxda soomaalida. dhegaystayaal daawadayaal, waxaa intaa nagaga eg warkii dunida oo aad ka dhegaysanayseen birmed media. inta aanu ku kulmi doonno warkan warka xiga, waa maxamed xaraare oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.